بسم الله الرحمن الرحيم. لحي تبكي سبتمبر 2023 كوي تبكي بيش سبتمبر 2023 أبارة سيدي أما لبدي في نوبة بعد المغرب أي عيد مدى أمانك oo ku jira hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa iyo roondooyinkii ay sameyn jireen gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda oo ay la jiraan maamulka deegaanka Dar es Salaam waxay gacanta ku soo dhigeen gaari noociisu yahay Toyota gaarigan aad aragtaan gadaasheeda yaala gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi kaas oo ay qawaarijtu ku soo rareen walxaha qarxa si ay u dhibaateeyaan lana damacsanayna dhagabar u isticmaalaan ku dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed ee muslimiin ay waxba ka galabsan إلهي مهدي عيدمada أمانك ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta khawaarijta iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed ayaamahan bay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sida aad aragtaan leh laba taargo oo kamid ah dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taasoo ah dhagar ay khawaarijtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaasheeda taagan waxa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20 yaal ah oo ay ku jiraan baaruudda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaan TNT-da iyo sidoo kale dhagar qabihii gaariga waday isna ciidamada ammaanku gacanta ku hayaan haddana waxa ku socota baaris la xiriirta dhacdadaas iyo sidii wax u dhaceen sidii ay cadaaladda u maraan isaga iyo intii kale ee falkan guracan ku lug lahayd sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi waa neef guracan geeda kama waabto waxa socda hawlgallo ciidamada ammaanka iyo ku difaaca iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihii iyo meelihii ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1 kilomitir magaalada caasimadda la iskala baxay oo halkaas kaymaha qawaarijtu lagu eriyanayo marka si ay culayskaas isaga qaadaan ayay qaraxiyo iyo dhagar kale ummadda meelaha nabadda ah oo caasimaddu ay ka mid tahay u soo maleegeen ayadana ciidamada ammaanka oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya kan kaliya maahan waxa hore looga hortagay daynayla mid sidaan oo kale ay qawaarijtu dhagar ku soo rareen oo rabeen dadka inay ku dhibaateeyaan meelo kale ayaa sidaas oo kale looga hortagay marka hawlgallada noocaas waa sii socon doonaan qawaarijna Ilaahay idinkiis dalkan waa laga sifayn doonaa biidin Ilaahay baari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doontaa dal ka caagan qawaarijta hawlgallada lagu dagaalamayna gudaha iyo dibadba waa ka socon doonaan magaalada caasimadda gudaheeda banaankeeda gobolada dalka Ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa in qawaarijta la soo afjaro biidin Ilaahay baari